of a major economic impact in both countries. This milestone that we're signing today is going to set the way forward for a new phase of Somaliland. The gate for trade is the port. And we at DP World, we are committed to the success of the development of the port of Berbera and every aspect in relation to the port to make it a major hub and an additional gateway for Africa, especially on the Red Sea, which is a major waterway that takes and connects east and west. And this is in my opinion, we waited so long for this project to happen. This is long waited and overdue, and we believe the passion, the hard work that was shown and the dedication by the people of Somaliland reflects your sincerity and your belief in your future. Because every project has a belief. Where I'm standing today, 30 years ago, we handled 30,000 containers a year. Nobody believed this place will work. Everybody called it a white elephant, but we never listened because we believed in it. Our government believed in it. Sheikh Mohammed believed in Jebel Ali. And the result of our belief and hard work is that this port became a major port, handling over 15 million containers, a growth of 6% on the average. When you translate in TEUs, that's like 800,000 a year, connected with the airport. So we learned so much in the last 4 years in this place. What we learned in experience, in knowledge, in ability, in economic sense, in building and enabling trade, this is something we take away with us to reflect in Berbera. Because we believe in that project, we believe it's going to work. We did it in Djibouti, and you can see for yourself, your neighbors, they're enjoying a good business, developed economy, and the same thing, inshallah, with your cooperation will happen in Somaliland. Again, I thank you for your trust, and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inshallah we start this, and God willing, we will. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Your Excellency, Mr. Vice President, Excellency Chairman and CEO, Excellencies, Ministries, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. As the Chairman said, we're witnessing here today a historic moment. It's honor and pleasure to be part of this historic moment in which we are laying the foundation for a partnership which will expand the capacity of the port of Berbera to serve not only Somaliland but the region. It's good news, not only for Dubai World, not only for Somaliland, but for the region as a whole. The region needs another modern port. Overall, the trade in the country, in the region is expanding at 10 to 15%. That means it will double every 7 to 10 years. The current port capacity in the region is far less than what would accommodate that growth in demand. I would like to take the opportunity, I would like to take an opportunity, this occasion, to thank the teams, both from the Dubai World and from our side, who worked so hard, so long, to make this occasion possible. I would like also to urge other investors
to follow suit of Dubai Well. Somaliland is open for business. And I would like also to urge our people to welcome Dubai Well and to welcome investors. Thank you very much. Now I would like to invite His Excellency Vice President for a short speech. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Your Excellencies, Madaxweyne Murweyn, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I can speak my own language. Waxaan runtii maanta dhammaantiin maxaa inoo ah waa maanta waa maalin weyn, waa maalin aad u qiimo badan, waa maalin qiimo gaar ah ku yeelata taariikhda Somaliland iyo DP World iyo dhammaan geeska Afrika runtii. Waxaan halkan ka caddaynayaa in muddadii 5 bilood ahayd ee labada tiim ee kasoo kala socday Somaliland iyo DP World runtii waxaan u mahadnaq badan dadaalka badan ay kusoo jireen oo halka faraha badan leh ee muddo 5 bilood soo socday iyadoo ay ahayd mar kasta oo ummaduhu ay wada galayaan heshiis taariikhi ah oo labada dhinacba u leh qiimo u leh gorgortanku waa wax dabiici ah. ujeedada laga lahaa gorgortankaasina waxay si isku labada darood isku iman lahayn isku heli lahayn akhritaankii waxay suura gashay in laba darood ee labada qaybood ay kala wateen ay isku yimaadeen lana ku dhammaatay guul iyo safgarad sida labada hogaamiyihii hore madaxdii hore sheegeen runtii waa maalin aad u qiimo badan labada daraf oo qiimo badan. waxaan ummadda reer Somaliland ugu baaqaynaa in la soo dhaweeyo DP World iyo maalgashayaasha kale caalamiga oo dhanba sababtoo ah dal kasta oo maanta jira adduunka inagoon dal la ictiraafsanahayn haddana ummad kasta u jirta ay kama maaranto maalgelin. saas darteed maalgelin qiimahay leedahay iyo isbeddelka ku samaysay taariikhda ninkii garan kara reer Somaliland dad waxay halkan ku xidhnaa ilaa awowka ku xidhnaa way garan karayaan 40 sano ka hor 30 sano ka hor dalkan siduu ahaa isbeddelka intaa laga waxa keenay waa maalgelin. saas darteed waxaan aad iyo aad u faraxsanahay maanta markii labada qaranka Somaliland heshiiska maanta taariikhiga dhacay iyadoo ay labada tiim runtii dadaal aad iyo dulqaadasho fara badan ay soo sameeyeen aakhirina ay gaadheen danteenu waxay ahayd in labadii dhanba ay ka faa'iidaystaan maalgelintaasi ka faa'iidaystaan. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha ahna maaragtay managerka shirkadda DP World Mr. Suldaan runtii oo sabir badan iyo nabadgelyo badan u yeeshay. waxaan guud ahaan u mahadnaqayaa madaxda UAE iyo boqorka maaragtay imaaraadka guud ahaan imaaraadka gaar ahaan imaaradda Dubai Mr. Maxamed runtii oo iyagu ku dhowda qayb weyn ku leh. aad iyo baan u mahadnaqayaa dhammaantiin aad iyo baan salaamantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
So please just come here. Excuse me. أنا بيها مشرفني هنا. Inshallah we can do